heshiiskii nukliyeerka Iiraan ee dib loo soo nooleeyay waa in uu xaqiijiyaa xuquuqda siman dhammaan quwadaha adduunka ee ku lugta leh. Ruushka ayaa isniintii kadib markii Iiraan ay weydiisay faahfaahinta dalabka Moscow ee damaanadda Mareykanka ee soo celinta heshiiska. Arrintan ayaa timi kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov uu sheegay Sabtidii hore in ka hor inta uusan taageerin heshiiska nukliyeerka Iiraan uu wadankiisu ka doonayo Washington damaanad qoraal ah oo ah in cunaqabataynta reer galbeedku ee lagu soo rogay dagaalka Ukraine aanay waxba ka quseyn doonin iskaasiga dhaqaale ee military ee ay leeyihiin Tehran. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ku tilmaamay dalabka noocaas ah kuwa aan quseynin maalinta xigta, isagoo intaa ku daray in cunaqabataynta la saaray Ruushka ee duulaan ku qaadeen Ukraine aanay waxba ka quseynin heshiiska nukliyeerka ee Iiraan.